السلام عليكم ورحمة الله وبركاته saaxiibada ku xiran janaalka layaabka media ee YouTube maanta waxaa idiin haynaa dad la kulmay waxyaabo halis badan oo aad la yaabi doontaan ay kaamirada qarsoon duubtay kusoo dhawaada asxaabta muuqaalkeena maanta ninkan inoo muuqda ayaa ku dhibanaa sida uu malaayiga shawiqiisa u soo gali lahaa wuxuu isku dayay marar badan laakiin waxaa dhacday markuu ka qoostay arrin cajiib ah malaay kale oo ka weyn baa shawiqiisa u soo galay oo ka soo booday badda dhexdeeda ninkan ayaa ku shiish baranayay meel ka fog laakiin markuu toogtay baa waxaa dhacay wax la yaab leh waxaana ku soo booday dhagax kaas oo sababi gaaray inuu dhaawac halis ah gaarsiiyo wariyahan ayaa dhahay haddii aan isku dayo aniga oo sii jeeda in aan kubadda shabaqa geliyo basketballka ayaan ku soo biirayaa wuu isku dayay markii dambe laakiin si cajiib ah oo la yaab leh ayuu shabaqa u geliyay kubaddii yarkan inoo muuqda ayaa wuxuu doonayay inuu ka tuuro meesha sare TV-ga si uu u ogaado inuu badbaadi karo TV-ga laakiin wax kale baa dhacay oo yaab leh TV-ga ayaa waxba gaarin dhulka ayuu ku surmay sidaan ka arki karno muuqaalka dukaankan ayaa waxaa ka dhacay wax cajiib ah maxay noqon karaan dhalada wax jibiyey markii dambe ayay kaamiradu qabatay inay ahayd Coca-Cola kasoo farabaxsatay nin ka soo bixinayay fridge-ka yarkan inoo muuqda ayaa aad u nasiib badnaa marka uu mootada kaxeeyay baa waxaa dhacday in mootadii uu ka dhici gaaray sida muuqaalka ku arki kartid laakiin sidaa ma aanay markii dambe uu sii kaxeeyay mootadii ninkan ayaa marayay meel kafeega lagu iibiyo laakiin nasiibkiisa ayaa badbaadiyey dabaqii baa qayb ka mid ah meesha uu marayay markuu soo gudbay kusoo burburay sida muuqaalka ka arki karno intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkeena maanta haddii uu ku qanciyo muuqaalka ilaawin inaad la wadaagto asxaabtaada haddii ay tahay markaagii kugu horeysay nagu soo biir wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh